raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa qayb ka mid ah barnaamijyadeena aan sida maalinlaha kaga hadalno guud ahaan caalamka iyo waxyaabaha ka soo kordhay maadaama xiisad ay ka jirto bariga dhexna waxaan ku dadaalaynaa inaan kula wadaagno waxyaabihii ugu dambeeyey qaybtan qodobadan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah Abu Cubayda oo war ka soo saaray qaar ka mid ah ciidankii ilaalada ka hayay maxaabiis ay gacanta ku hayeen oo la dilay waxyeelada maxaabiista soo gaartay ayaan kula wadaagi doonaa waxaa sidoo kale aan eegi doonaa dowladda Iiraan waxay diyaarado daroonis ay ku soo bandhigtay gudaha dalka Ruushka qoraal lagu soo qoray diyaaradahaasna waxa uu cabsi gelin uu ku abuuraya Israa'iiliyiinta duqeymaha diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Gaza wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud Daniel Hagari oo sheegay inay heegan buuxa ay ku jiraan qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada falanqaynta iyada oo dagaalka ka socda magaalada Gaza uu sii xoogeysanayo ayaa afayeenka xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta gaar ahaan Kataib al-Qassam waxa uu soo saaray war cusub oo ku saabsan in laba ka mid ah ciidankii loogu talagalay inay ilaaliyaan maxaabiista ay dileen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil waxa uu sheegay in sidoo kale la dhaawacay maxaabiis ay gacanta ay ku hayeen xoogagan sidoo hadalka u dhigay afayeenka guutada Kataib al-Qassam Abu Cubayda ayaa maanta ku dhawaaqay laba ka mid ah ciidamadii loogu talagalay ilaalinta maxaabiistan inay dhinteen sidoo kalena waxa uu sheegay in qaarkood maxaabiista ay dhaawacyo halis ah ay soo gaareen halka askar kalena ay dhaawacmeen oo loogu talagalay inay maxaabiistan ilaaliyaan waxa uu sheegay laba ka mid ah haweenkii gacanta ay ku hayeen inay dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii dhowr meelood ay gantaale ku garaaceen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil lana bartilmaameedsaday halka maxaabiista lagu hayay sicad uma uusan sheegin goobta laakiin waxa uu yiri waxaan dadaal ku bixinaynaa inaan badbaadino nolosha inta dhaawacantay inta dhimatayna Allah u naxariisto oo ahaa ilaaladii qaaska ee maxaabiistan Israa'iil waxay isku dayaysaa buu yiri in ay xasuuq badan u geysato dadka shacabka ah laakiin falcelinteeda waxaa ka dhalanaya sidaan oo kale in nolosha la dhaafiyo maxaabiista aan gacanta ku hayno sidaasi waxaa lagu yiri qoraalkan uu soo saaray Abu Cubayda afayeenka xoogaga iska caabinta maalintii sabtida ee la soo dhaafay magaalada Gaza waxaa ka dhacay mid ka mid ah duqeynta ama xasuuqii ugu xumaa ee toddobaadkii la soo dhaafay markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay bartilmaameedsadeen iskuulka al-taabiciin oo xaafadda al-Daraj ku yaala duqeyntaas oo in ka badan 100 ruux ay ku shahideen daraasiin kale ay ku dhaawacmeen kuwa kalena la weysan yahay ilaa iminka xilli dadkan ay dukanayeen salaadii subax qaramada midoobay ayaa xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta Falastiin waxay ku tilmaamtay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa waxaanay qaramada midoobay Mareykanka ku eedeysay inuu dhaqaale badan uu ku bixinayo gumaadka Israa'iil ee ka soconaya magaalada Gaza kaas oo xitaa lagu tilmaamay isirsifayn mas'uuliyiinta Mareykanka arrintan kama aanay jawaabin iyadoo xasuuqaasi uu dhacayana waxay shaaciyeen inay dhaqaale ku bixinayaan garab istaagga Israa'iil oo ku dhawaad 3.5 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa toddobaadkan loo ogolaaday Israa'iil inay hub kaga iibsato isla Mareykanka sidoo kale Mareykanka ayaa diyaarado dagaal iyo maraakiib iyo qubarro military u soo diraya wadamada bariga dhexe si loo difaaco kaliya Israa'iil dagaalka ka soconaya magaalada Gaza tan iyo 7 Oktoobar waxa uu sababay dhimashada iyo dhaawac in ka badan 132,000 oo shacab ah oo Falastiiniyiin ah